deegaanka Duud Caraale oo ka tirsan degmada Elafeyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaa ka soo cusboonaaday dagaal u dhaxeeya laba beelood oo wada dega halkaasi horena heshiis loo kala dhex dhigay. Dagaalkan oo maanta galikii dambe ka bilowday deegaankaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan la xaqiijin tirada dhimashada iyo dhaawaca uu dagaalkaasi sababay. Haddana ilo xogayaal ah ayaa Badda Cas TV u sheegay inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawac. Maayirka degmada Elafeyn Cabdiraxmaan Aw Yuusuf Axmed oo telefishinka Badda Cas TV khadka taleefanka ugu waramay ayaa xaqiijiyay inuu dagaalkaasi dhacay, balse aanu ka warqabin khasaaraha uu geystay maadaama uu xilligan ku sugan yahay magaalada Cerigabo. warbaahinta Badda Cas TV deegaano ka tirsan Elafeyn ee banka lagu magacaabaan maqlayn shaqaaqa ka dhacday ka maayir ahaan arrintaas maxaad kala socotaa? ما أنت أسمع أنا مغصنها إن شعار كده على كل بدك يدري مش بدي يسأل دعنا هرو سقطتهم بقى عيال كده عليه دعال بليبي أنت واحدة في السنة ورا كمان مشي كمان واحد أنت واحدة وحط مشي كرو لكن ضد يوم لحلني وحشيين دعوني شكتشرو دمشق نشرتو أرنتاس وحوجة كمان هي تدميها iyo xogaa wali ma lama yidaarin xaaladdu way socotaa marka lama sheegi karo waxaan weynde wax waqti amaan dagaalku imsadii u bilowday ilaa 3 iyo labadii beenahaas labadii markii ilaa 3 duhurnimo waa gartay ciidamadii Elafeyn joogay talaabo nooca ay halkaas ka qaadeen والله هذا أنا عارف هذا بس هو أرجع مش بحقيقة كل شيء كله عيدا كاس كل كذا إنت ليه waxaana maayirka degmada Elafeyn oo hadalkiisa sii wataa uu sheegay inaanay lahayn awood ay ku kala kaxeeyaan ka maamul ahaan beelahaasi dagaalamaya aan ahayn inay isu soo dhaweeyaan iyo xal ay kala dhex dhigaan. ka maamul ahaan meedan gurmad u fidin dadka beelaha walaalaha ay halkaas isku leeyahay أنا بدي حاول إذا وقف فدنا لا يمكن لا مرتين عن كذا حالة دقالتها دينا وقفي ودكوان وستودوني حيلين يعني دينا اللي أعود من تلك وانك أعودهم كلك حين ما نحين لكن سيدي بمن تلك بين تكمان بدنا كرتي ولي الآن دقالكم يوصل عليكم عيلة كل وحوركم عيلة لسه حلين وصعدا حتى كل حالة دي بعدين حسيت بكبير والله يدالكم شخصي أو ذكي ما نحين إلى هذا لكن شيء حالة العالمية هذا سوى حالة العالمية قياسك maayirkii degmada Elafeyn baa tahay magaalada nabad ka soo maqato ceergada joogtaa ugu dambeyn fariinta aad u diraysid dadka beelaha walaalaha ay halkaas isku leenayaan maxay tahay maayir لا فلنت هذا كنت يتي هنا لو دري هذا ما واجبك حويان لأن تشي بدالك إلى على قبله وحي كي كود انت كي وحكود دلا كي اللي دري كي وحكود دلا وأهل النار أنت لما ضل حكون وان كتير دري أغلب هالوقت صد بالما تشيلني وأنا فرنت يقدر أفضل من الله si kastaba ha ahaatee colaadan ayaa u muuqataa mid soo noqnoqotay sababtayna mood iyo maal. wixii warar ee ka soo kordha xaaladda deegaankaasi daawadayaal waxaad ku maqli doontaan wararkayga dambe. Saciid Muuse Faarax Sid Qurbaawi, wararka Badda Cas TV, Cerigabo.